laba qola oo barandihii leh ayaynu doonaynaa in saakaba la bilaabo. waa la qiimeeyey $1,500 baa lagu qiimeeyey. 1,500 cidna umaanu qaadhaamin, cidna umaanu weydiin, ilaahay baanu la kaashanay. mas-uuliyad baa aniga shakhsiyan saaran, qasab bay tahay inaan qayb hawshan ka noqdo. 1,500 waa midaan jeebkayga ka bixinayo, waana midaan doonaya in caruurta guriga loogu dhiso. waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo maayirka iyo maayir ku-xigeenka oo iyagu barta nimid oo yidhi waxaanu damaanad qaadaynaa nolosha qoyska. marka iyagana waanu ka rajaynaynaa guriga marka la dhiso wixii agaba la dhex dhigayey. waxaan adeer ilaahay kaaga baryaynaa inuu ilaahay kaaga cawad celiyo. waxa weeyaan maqaadiir waa masiibo intaa adduunka o dhan way ka dhacaysaa, cid walbana way u joogtaa geerida yar iyo weynba. laakiin waa geeri xanuun leeyahayd. ilaahay waxaanu kaaga rajaynaynaa inaad ku samirtid oo ma og tahay dee ubadkii waad weyday, laakiin inuu ilaahay iimaan saadiqa ku siiyo. halkan maanta waxaanu isugu nimid caruurtaa dubatay ee aada maqasheen ee caalamta imidta caalamta oo dhan bay taallaa. horta sabir iyo iimaan ilaahay waxaanu ta barinay caruurtaa inaad sabir iyo iimaan ta qaadatid, in ilaahay wax ta weyn oo ta barata badan inuu ilaahay tusiiyo. tuwanuna aakhiray tuusii jiraanoo meel ilaahay baa dee barta horena teena iyo matalaan la noqday. sabir iyo iimaan baan horta marta hore tuleeya adeer, sabir iyo iimaan. waxa weeyaan maayirta haltan yimidna waan u mahadnaqayaa ee maayirta xidhiinta. maanta xildhibaanteennii ayaa yimid oo hawshan fuliyey. maasha allah maasha allah maasha allah. ilaahay miisaanta aakhiro ilaahay au saaro, tor awd u qaado. ilaahay waxaanu ka baryaynaa xildhibaantii jira ee lagu intifaaco ee dabooyaba tu intifaaco ilaahay ha tadhido. ilaahu tadhid, ilaahu tadhid, ilaahu turbadii buu nada qaaday, turbada taqaad. ilaahu turbadii baa nada qaaday, turbada taqaad. sabir iyo iimaan saadiqa allaha kaa siiyo, qalbiga allaha kuu adkeeyo, cawil khayri qaba allaha ku siiyo. taasi waa tii ducada. ta kale islaamka allaha kuu sikhiro, islaamka allaha kuu sikhiro dal iyo dibadba waanay kuu sikhirmaysa. xildhibaankanna khayr allaha siiyo, allaha barakeeyo. xil weyn buu naga furtay, allaha barakeeyo. taweynina way ku xigtaayoo way daba socotaa. adigana saasaanu kuugu ducaynay, qalbiga allaha kuu adkeeyo. waa laysugu yimid saaka waxaan iskugu nimid meeshii ay masiibadu ka dhacday ay labada inan ee yaryari ku saqayreen. xildhibaankeena barkhad jaamac batuun ilaahay miisaanka xasanaadka u saaree isagaa ugu deeqay saaka $1,500 oo loogu dhiso 2 maqsin iyo barandahoodii. idinkana waxaan idin leenahay samir iyo iimaan allah idiga siiyo, samir iyo iimaan allah idiga siiyo, shafaaca waalidiin allah idiga dhigo. waan ammaanaynaa maayirka yimid xaggan iyo maayirka xigeenkaba, anigoo ah ugaaskii reerka ugaas mukhtaar ugaas cabdiqaaray. aad iyo aad baan idiin salaamayaa. ilaahay samir iyo iimaan hayniga siiyo. xildhibaanka maanta inii bilaabay maanta 2 maqsilna ilaahay meeshu ka soo saaray wax khayr qaba ilaahay u geliyo, ilaahay wax khayr qaba ha u geliyo. anigu waxaan ahay jaarkii 3 qoys ee meeshan ku baaba'ay. aniga ayay la degan yihiin gurigayga wakaa. xil weyn bay maanta iga qaadeen, allah asturo. meeshana wax yari kama dhicin, 3 qoys baa ku baaba'ay. marka mar labaad waxaan tacsiyo u dirayaa inankii iyo inantii ay masiibada ku dhacday labada ciyaali ka geeriyoodeen. markaan tacsida intaa kaga baxo, halkan waxaan ilaahay ka sokow ugu mahadnaqayaa xildhibaan barkhad jaamac batuun oo baaqiisii u horreeyey ka soo jawaabay waxqabadkii loo qabanayay labadaa qof oo labadii sandaqadiiyo barandayaashoodii u dhisay. isagana waxaanu leenahay halka aad ka soo saartay wax khayr qaba allaha kuugu bedelo. aad iyo aad baan ugu tacsiyeynayaa reerka ay ka geeriyoodeen ciyaalkuna. asalaamu calaykum. waxaan aad iyo aad ugu maqamaa xildhibaanka maanta halkan ugu soo caawiyey ee dhibaatadiina haysatay naga dulqaaday. ayaan ugu mahadnaqayaa. ilaahay ha ka jisaasiya, cimrigiisuna ilaahay u dheereeyo.